gabadheedu waa ikana waan ku imid hooyo mii imaatay gabadheedu waan ku imid laakiin xoogaa yar waan kaa soo daaha iga raali noqo hooyo anaka meeshan maxaa u joognaa ii sheegba ani ma rabo meeshan inaan sii joogno adasho igama ballan qaadan guri inaan noo raadinayso gabadheeda waan kaa ballan qaaday waana noo soo helayaa guriga markii aan degna kadibna rinjiga aad jecleed ayaan kuu marinayaa hooyo ma qurux badnaana gurigeena markaas gabadheeda guri qurux badan ayaan degaynaa meel kastoo adiga joogtidna waaba iska qurux badan tahay hooyo ani inaa isdhibta dhan ma rabin adiga keliya ani muhiim ii taas ma ogtaana hooyo maanta mise leedahay waqtiga inuusan soconinba runtii waqti waa socolaya jiif shaahanan kuu keenay cabuu kuu fiican yahay sanadooyinka qaar markaad maraykanka ka timaadid meeshaan ayaad fariisan jirtay waana baashaali jirtay sheekooyin fara badanna waad iga sheekayn jirtay anigana ma ahayn qofka caajisa sheekooyinkaaga ama xumaanka qaada marka wiilkaygii sidee wax u jiraan maanta waxaad la dagaalamaysaa xasuusahaaga hore ii sheeg bal aniga inaan dagaalamo diyaaro ma ii jiif mar walba waxaan isdhahaa tallaabada hore u qaada waddadaada raac haddana iima suurta gasho wax walba inta isgediinay isbedelin haddana ugu dambayn anay igu imaadeen oo wiilkayga horta midaan kuu sheego mararka qaar xasuusayin hore haddii aan soo xasuusanno qalbiyadiina ayuu culays aad iyo aad u saaraa balse anaga kama fikirno laakiin adiga waxaan ku weydiiyey qalbigaaga ma ka carari kartaa hadda adiga taas xitaa waxaa ma soo kordhinayso jiif waxba iskuma beddelayaan ka carar haddii aan isdhaho iima suurtoodo haddaan la dagaal isdhahna iima suurtoodo intaas kadib ma aqaan waxaan sameeya mararka qaar waxaan dareemaa inay xaaladda sii cakirmayso un waxayna ila noqotaa sida qof mar walba cararaya inaan ahay aniga waxaan ku fekeraa orodka xitaa inuu ii wanaagsan yaho tallaabad qaadaan isdhaha haddana ugu dambayn waa soo kala wareegtaa oo waxaan ogaadaa tallaababa inaan qaadin bini'aadanka qaar waxay u maleeyaan ilaahay inuu laba waddo keliya soo saaray balse maskaxdayna iyo fikradahayna markii ay daalaan xataa markaas waddo saddexaad maba soo bixi kartoba waad saxantaa sida aad sheegtaba jiif maankaygan iyo maskaxdaba way daalan yihiin aad iyo aad weliba shaah ayuusan ka qaboobin cabal abukaata macquul maha waqti sidaas u badanaa nagama haysano dabcan waxaan rabnaa operationkan si degdeg ah inaan ku samayno mudane run ahaantii aniga waan ku fahmi karaa dhanka sharciga marka laga fiiriyana qofku markuu qof wax ku deeqaayo ilaa iyo 40 xiriir waa inuu ka dhexeeyaa mideeda kale misneebaana arrintan ma bixin karto waan ku fahmay dabcan waan ku fahmay laakiin abukaata neefaa waa gaclisadayda mudane saa aniga hore kugu sheegay arrintan mid macquul galays maahan qoftaana aad leedahay saaxiibadeedu waa hadday xaaskaaga noqon lahayd waxbay ahaan lahayd laakiin shuruucdeena midaan ma yeelays hadhowna baaritaan adaga ayaa la sameynaya marka maxaan sameynaynaa marka anaga dabcan waan ogahay taasna wax dhibaataa unu aragna ma lahan soo sidaas maa macanta mar
marwa saylaan maxaa kugu dhac weli maadan soo bixin miya marwa waan ku walwalayaa ugu yaraan inaa cafaad qabta xataa ii sheeg marwa albaabka iga fur marwa saylaan naarjiisay waayahay oo fiican aniga kaniini dhiigkarka wuu kaa dhammaaday marka kaniini ayaan kuu soo gadayaa marwo shoobin hore usoo samaysanaya hadda maxaan kuu soo iibiyaa hadale marwo maxaan kuu soo gadaane maya waayahay qoraac ayaan kuu sameeyey wax walba jikada ayay kugu diyaarsan yihiin waad mahadsan tahay naarjiis neeva u kaadi marka hore neeva u kaadi hal mar oo wada hadlaynaa anigii adiga heshiis waan wada galnay laakiin heshiiskeena kuma aysan jirin aniga gaclisadaada inaa waxaad ku hadlayso maqlaysid saan u qalqalay neeva waddo kale aniga ima furnay waa maqlaysaa bukaataa wuxuu ka hadlayso ma si kiiskaan aan u xalino waa in ay aaminaan ani adiga inay wax naga dhexeeyaan neeva maxaa dhacay taas aniga hal mar igama wareysanaysa xitaa miya waxaad tirtoo beena iska sheegaysaa anigu xitaa xiiseeday maayo adiga inaan reerku la yeegleelo allah ninkan aad arkaysa waa bukaate guddiga anshaxa ayuuna ka tirsan yahay taas macnaheeda ma garanaysaa hooyada adiga diyaar muu tahay inaad qalinkaas darteed u gasho haddaba ninkan saxiixiisa la'aantiis annaga waxaan samayn karna ma laha hadalkaasna waxaan u dhahay si u aamina labadan inuu xiriir naga dhexeeyo adiga ma fahansanta waxaad ku hadlaysidna yaa aaminaya labadeena inuu xiriir naga dhexe beentaas haddii bannaanka imaata ka lagama yaabo beentaas inay bannaanka imaato cid ogaanaysana ma laha allah waan awoodi lahaa aniga intaa kadib been inaan sheegay tii hore ayaa igu filan hadda waddo kala raadi neefay dhegaysa haddaba aniga iyo adiga heshiisaan wada galna soo maaha muxuu aha heshiiskeena mataqaanaa 100,000 oo horumaris ah inaan adiga gacanta kaa saaro waan ku siiyey sababtaan ku siiyey ma garanaysaa waa inaad hooyadee beerkaaga u bixiso wax mugdi kaaga jira inaysan jirin aan filaaya hooyadee darteed qalinkaas waad u gelaysaa si qalinkaas uu dhacan wax walba oo samaynaysaa xitaa haddii aynu ku qasbanaanay inaan isguursano waan guursanayaa aroos maa dhahdayna maya aniga midaas ma ogolaan karo kontraktig naga dhexe wuxuu ahaa hooyada inaan beerka u bixiyo aniga ma ahan aroos inaan wada galno mala socotaa gabar yarna ii joogto gabadhaas yarna wax walba ay ku dhici karaan inaad fahansiisa arrintaas looma u baahnaba guurkeenna waan siraysanaynaa ilaa obrethonka uu ka dhammaana si fiican ayaad noola socotaa soomaa guurkaas mid sharciga inuu yahay haywaaya waddo kale ma haysaa ha lacagta aan ku sii dib u soo celin kartaa neeva haddii ay danta kilifto laakiin marnaba lagama yaabo guurkaaga inaa ogolaado naafay dhega maruselan adiga miyaana yaa ma xasuusataa shalay markaad iiga sheekeynaysa ubadka iyo hooyada xiriir ka dhexeeya hooyada rajadeeda ugu weyn waa inay ubad dhasha ayaad igu tiri haddii ay dhashana inay ka rajo dhigto looma baana ayaad igu tiri soo maa waan awoodi waayo hooyo inaan noqdo aniga waxaan ahaa qoftii nolosha wiilkeeda gacanteeda ku baabi'isay may sidaas adhiyan waan ku baryayaa albi noloshiisa ma aysan baabi'in neeva gabadhaada indhaheeda markii aad fiiriso maxaad ka aragtaa ii sheeg
sababtaan u noolahan ka arkaa sidaasoo kale albi markii uu dhalanayay sababta aan u noolaanayo ayaan ka dhex arki jiray laakiin hadda indhihiisa haddii aan fiiriyo daciifnimadeyda doqonnimadeyda iyo dadnimo xumadeyda ayaan ka dhex arkaa sidaa darteed ma fiirin karo isagana ma doonayo inuu isoo fiiriyo ama indhahaygu u arko sidaas darteedna wuu iga fogaada anigana wax walboo nolosheeda micno ugu fadhiyo waan waaye xiriirkii anigii cunugayga naga dhexeeye anigaa gacmahayga ku baabiiyey marwo seelaan adiga looma baahno waxyaalahaasoo kale inaad ku fikirto albi wuu ku jecel yahay weliba aad iyo aad ayuu kuu jecel yahay jecelku adiga kuu qabo xanaaqa ayaa wax yar ka tambidiyey laakiin asaga marnaba maku iloobo wuu ku jecel yahay anigaa ku dhahay hadda istiiji anigaa ku imaanaya wax yar kadib maya aniga waan daale waan rajo dhigay ugu dambeyn waan isdhiibay marwo seelaan ofo marwo seelaan تليفونك قبل تليفونك dabcan si fiican waad iga soo fakartay dalabkayga ma aqbashayna war dalabkii waxaad sheegaysa ma ogiyaan ku dhahay emir waseelan ayaa hadda isoo wacday weliba ayadoo isku buuqsan waxaan ka cabsanaya inay dhawaato isku geysato yah waaya sida ugu dhaqsiyaa badan anna hadda intagaya waaya waan imaanayaa anigeen ahaa markaas waad iga soo dahda hooyo aad iyo aad uga soo dahday 20 sano kugu qaaday haddii baad rabto inaad aniga aragto anoo canab yara 9 sano jir ilbaabka hortiisa igamaada tagtay imana cadlaysa sawirka faamilkaas adigaa sameeyey nolosheedana adigaa helayo xasuuqay hooyo adiga oo keliya Maruselan Maruselan hay soo dhawaan waan ku sheegay agteeda ha isku imaan waan ku digaya Maruselan maxaad waxaan u sameynaysaana waan ku baryahay meesha ka soo deg albi wuu kuu soo socdaa hadda ayuu ku imaanaya maya waan ku baryaa marwo dhibaataha isgaarsiina adiga waan isdhiibaaniga hay soo dhawaan ha isku dayn agteeda inaad imaado waxaan ogaa been ayaad ii sheegaysaa i aamin aniga been kuuma sheegay been ayaad ii sheegaysaa waxaan isdhiibay albi wuu ku imaanaya adiga hoostaada ayuu imaanayaa weliba rajada ugu dambaysa waan lahaa inaan asaga arkay taasna waan waaye hay soo dhawaan waan ku sheegayaa waan isdhiibay waan istuuraya sababtoo ah waan khasaaray nolosha noocaana inaan ku noolaado ma xamili karo waan istuuray Maruselan waan ku baryaa inaad ifahantid isku day waxyaalihii hore anaga waxba kama bedeli karno laakiin adiga waxaan kuu sheegayaa qalad walba hore u soo gashay maanta inaad haysato jaanis aad qaladkaas uga gudubto aniga hadalkayga maqal albi sidaan ha uga tegin ha cidleenin adiga ayaa dhalay adiga ayaa noloshaan ku soo tarbiyeeyey waan ka xumaay aniga
waxaad noo sheegtaa inaan aad iyo aad u jeclahay oo adiga hadda ma waxaad mooddaa dhimashadaada kadib nolosha inay sidaas ku dhammaanayso ma waxaad mooddaa xanuunka anaga sidaas inuu nooga dhammaanayo nolosha dhan intaas may kula tahay waayahay haddii ay wax walba sidaas ku dhammaanayaan ha ku dhammaanaana diyaaraa u ahay ii soo dhawaan waxaan ku dhahay ii soo dhawaan inaan keligay aada ayaan rabaa aniga marwa saylaan waa inaad noolaataa adiga gabadheeda darteed xitaa waa inaa u noolaataa gabadhaada darteeda haddii aad istuurto jaaniska ugu dambeeyay ee gabadheeda sidaas ayuu ku baaba'ayaa adiga ayaana la tegaayo ogow marwa saylaan ogow laba qofood mustaqbalkooda ayaa adiga kugu xiran ma awooda aniga inaan noolaado nolosha waa nacay hooyo hooyo ha sameynin hooyo aad baan uga xumahay ha sameynin hooyo maya ha sameynin ha sameynin waan ku baryayaa hideeyo hooyda barya inaan dhinta ayaan rabaa aniga maxaad ii badbaadiseen iska geydaaya inaan dhinta ayaan rabaa aniga nolosha waxba iima tarayso hooyda barya iska geydaaya inaan dhinta ayaan rabaa aniga noloshan ma rabo idhaafa iska geydaaya bis hooyo bis geerida ayaan rabaa sida geerida kugu daawada hadda waan ku imid hooyo waana kula joogaa nolol adigu cillaysa ma rabo hadda kadib lagama yaabo hooyo inaan kaa fogaado sakin xitaa wiilkayga adigana kuma ogolaana inaad iga fogaato kaale taxadar mudan albi gacanta ma fiicantaa hooyo marwa saylaan waad fiicnaan doontaa mudana albi qolkeedaan geenayaa ina keen marwo anigaa kaa taxadiraya